Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabta, waxaad ku soo dhawaataan channelkeena Stima Code School Branch 2 Official Inolweyn. Cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sentences about Eidul Fitri. Jumladooyin ku saabsan Eidul Fitriga. Eid is the most important day. Eidu waa maalinta ugu muhiimsan celebrated by Muslims ay muslimiintu dabaaldegaan. Eida waa maalinta ugu muhiimsan ay muslimiintu dabaaldegaan. Eid is the most important day. Eidu waa maalinta ugu muhiimsan celebrated by Muslims ay muslimiintu dabaaldegaan. After Ramadan kadib, when the new moon is seen, marka la arko bisha cusub, the next day Eidul Fitri is celebrated. Maalinta xigta waxaa loo dabaaldegaa Eidul Fitriga. Ramadan kadib marka la arko bisha cusub, maalinta xigta waxaa loo dabaaldegaa Eidul Fitriga. After Ramadan kadib, when the new moon is seen, marka la arko bisha cusub, the next day Eidul Fitri is celebrated. Maalinta xigta waxaa loo dabaaldegaa Eidul Fitriga. In the morning, subaxdii, people go for Eid prayer. Dadku waxay aadaan salaada Eida. Subaxdii, dadku waxay aadaan salaada Eida. In the morning, subaxdii, people go for Eid prayer. Dadku waxay aadaan salaada Eida. On the day of Eid, maalinta Eida, Muslims wear new clothes. Muslimiintu waxay xirtaan dhar cusub. Maalinta Eida, muslimiintu waxay xirtaan dhar cusub. On the day of Eid, maalinta Eida, Muslims wear new clothes. Muslimiintu waxay xirtaan dhar cusub. They wish waxay rajeeyaan one another. Midba midka kale wuxuu rajeeyaa to say inuu dhaho Eid Mubarak. Eid Mubarak inuu dhaho and share iyo inay na wadaagaan their love jecelkooda and affection iyo kalgaceelkooda for one another. Midba midka kale inuu la wadaago. They wish waxay rajeeyaan one another. Midba midka kale wuxuu rajeeyaa to say inuu dhaho Eid Mubarak, Eid Mubarak and share iyo inay na wadaagaan their love jecelkooda and affection iyo kalgaceelkooda for one another. Midba midka kale. People dadka make delicious sweets. Waxay sameeyaan macmacaan dhadhan leh in their homes guryahooda and distribute wayna qaybiyaan them macmacaankaasi to their neighbors deriskooda and relatives iyo qaraawadooda. People dadka make delicious sweets. Waxay sameeyaan macmacaan dhadhan leh in their homes guryahooda and distribute wayna qaybiyaan them macmacaankaasi to their neighbors deriskooda and relatives iyo qaraawadooda. Cashirkeena maanta halkan inooga yahay. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saar, gambaleelkuna furo si ay kuu soo gaaraan casharada aan soo gelino.